ruushka gobolka Tver magaalada Torjok kaniisadda Pope Clement albaabka ugu weyn ee kaniisaddu waa wadada waxay soo baxday inay ka hooseyso heerka laamiga si aad u gasho kaniisadda waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhaadhacdo waxaan ku tusayaa dhanka kale tani waa meeshii allabariga ee kaniisadda daaqadda allabariga waxay ahayd heer dhulka ah aynu dhinaca ka eegno kaniisadda Portico Classic jijiba albaabka daaqaduhuna waa heer dhulka albaabka weyn ee laga soo galo waa inuu ka sareeyaa heerka laamiga saldhigga tiirka wuxuu inta badan ku taagan yahay tallaabada ugu sareysa waa inay jiraan tallaabooyin hoos u dhacaya halkan laakiin balbalada ay gebi ahaanba dhulka hoostiisa ahay tani waa kaniisadii hore ee soo bandhigida rabbiga kaniisaddu waxay leedahay laba dabaq waxaa jira albaab hoose dabaqa labaad waxa ku yil albaab laakiin waa la xidhay albaabka hoose ayaa la sameeyay intii lagu jiray dhismaha sidan ayaa leban loo dul saaraa meelaha darbiga ah kani waa albaab bir ah xirmooyinka noocan oo kale ayaa la geliyo inta lagu jiro dhismaha eeg heerka dhulka oogada dhulka ayaa si xoog leh ugu soo dhacaysa albaabka kaniisadda kadibna aad buu u kacaa markii hore oogada dhulku waxay ahayd heerkan waxaa la qoday albaabkii kaniisadda laakiin dhulku wuu burburayaa waxay ahayd inaan leexiyo albaabkan ayaa la sameeyay intii lagu jiray dhismaha kaniisadda laakiin kadib wuxuu ku dhammaaday dhulka hoostiisa waxay ahayd in albaabka laga soo baxo guriduuga oo ku yaal wadada xigta markii hore gurigu wuxuu lahaa daaqado isku mid ah oo laba dabaqa guriga ayaa ku dhacay dhulka daaqadahaas ayaa gebi ahaanba la xiray dhinaca wadada furnaanshaha daaqadaha waa la dhimay dheerkoodu wuxuu ahaa kalaba isbarbar dhig dhererka daaqadaha hore guri daba ah oo hore mar labaad dariishadaha dhulka galay ayaa la helay daaqadaha bidixda ka furnaa waxay ahaayeen gebi ahaanba dhulka hoostiisa dhanka midig dariishada ayaa si dirgi ah uga soo baxda heerka dhulka daaqadaha dhulka hoostiisa ka furan ayaa leh qurxinta gargaarka taasoo la mid ah dabaqa koowaad tani waa sida sagxadaha hoose ee dhismayaasha qaab dhismeedka qadiimiga ah loo qaabeeyey tani waa dhererka dabaqa koowaad taas oo ku dhammaatay dhulka hoostiisa